شركة وحنا نقدر إن شاء الرحمن شراء ورأس الداري والتشيء عن قصة منه اسم الشيء كلن كدب أيضا جعلها يقف كستو إنه سحر الرياضة وأركتدي سيئو أغلي سابه وهذا دونه ولو شخصيا أقولنا هاي حكومة أما برلمانك دولة جبلان مدحض القبطان فردها إن يقف كستو وحلقة تبنى شعب كيو ويكاد دونان وشيئا كران بلن قاضي إننا إن شاء الرحمن وحي أنو أرقنو إن شعب كيو ومضيضو أي كوكر ليهين إن آن سيحدون إن شاء الرحمن وحي بنع الدولة أي كسيح بدونتو وحي أرقتي أهان أي سكر وقل دمين أمي وأركان فكري عن كقبنا يا أركتي عن كلنا وشيئا دوننا إن شاء الله تعالى هذا كأنت بدلنا وحنجعلان دونا إن شاء الرحمن إن يلان دونان شعب كقبيسة كل دونا وقبط فرديو مال هفكيدي مال مكحكت انت بان كأهان دونا لغيستيال تلقانا أنو يلان دونا وحكستو أدنو بلا هذا شان أنو هو إن واحد قدبه وذي كإيمانين وحا إن شاء الرحمن دقيقنا لجوج دونه كل شركة نوفر دونه مدحونه دولة وحا مدحونها دولة كهر إن شاء الرحمن جعل إنهم كسر لويو مدحونها كسر لويو مدحونه كحين كدولة هذه أدبا ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدحونها دولة جبلان أحمد محمد السلام أحمد مدوبة وزير دولها الرماه قدها دولة فدرالك الصومالية عبد الرشيد محمد حدك قولها وزير هذا يقولها برلمانك جبلان وضياشة رغنك إن بدورنا ذي سلاطينتي وحقرتك هو يويك شرفت له الرضا لليرضا قرب الجوكت قناعسطة إذا ماذا أمنك بعض الصحافة لما أنتين وعندك سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعد مدى مدى حويني وحا شرف نوعه إن أدنا قال سوغي بشي وأدنا فرد شركي لسوغي وذا تشيغا بيل كمد أبيلها دقن جبلان haddii magaceeda la sheegan lahaa beesha sade shirkeeda inuu maanta oo 20ka bisha 2016 aad nooga furtid hoolkii wada tashiga Jubbaland waxay noo tahay farxad aad iyo aad u weyn shirkan iyo ajendayaashiisa iyo waxay noqon doonto dib baan u hadli doonaa ama guddi farsamo jiro ama maxaa la yiraahdaa dad soo diyaarinahay baa ka hadli doono annagu haatan inaan kugu soo dhaweyno oo shirka noo furtid umbuu macnuhu yahay markaad shirka noo furtid insha allahu tacaala annagu shirkana aan wadan doonaa wuxuu nagu qaatana waxyaalaha aan iskugu nimid ee muddada dheer la sugayay ee dhegta loo taagayay ee dal iyo dibadba laga waran sugayay insha allahu khayr bay ku dhamaan doontaa si guul ah ku dhamaan doontaa waana wada hadli doonaa si rasmi ah wada hadli Soomaalidana waxay tiraahdaa aan wada hadalno waana heshiino waxaan filayaa shirkanaga noo furmay maanta waa daahfurkii iyo furitaanka aad noo furaysay waxaan kaloo sugaynaa oo intaan shirka wadno galan aan rajaynaynaa ama nagu soo biiri doono xubno muhiim noo ah oo noogu imaan doono dalka gudihiisa iyo dibadiisaba insha allahu tacaala daahfurka shirka iyo khudbadaadii iyo tusaalooyinkaadii uga jeedisid waxaa sharaf noo ah inaan kugu soo dhaweyno si aad noogu furto shirka mudana madaxweyne ku soo dhawow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sallallahu ala sayyidina maxamed ala alihi wasaxbihi ajmaciin aad baan u salaamayaa guud ahaan bulshaweynta reesade عقاشة مسؤولين وحجارة هويوين كالنيرة يقولان تكسوقين قش وعلى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام بعد وعنفر يا شركان ما شر يدين لو يجي وها شر نبض يا ولا المو
iyo ehelnimo iyo isu urxaarasho iyo tabasho la kala tabanayo iyo dariiq kasta oo wax lagu sheegay la rabo in la iska bogsiiyo waa shir aan rabno in caafimaad lagala tago ee ma aha shir aan rabno in cudur uu ka yimaado waxaad ogtihiin Jubbaland iyo magaalada Kismaayo hadda joogno inta culays iyo dhib iyo marxalada la soo maray waxaan garanaynaa dagaalka sokeeye dhibaatada uu keenay iyo waxa uu dhaxalsiiyay waxaan garanaynaa Soomaali guud ahaan maanta meesha ay taagan tahay gaar ahaan gobolkan culayskiisa raaya dhibaatadiisa meesha uu maray waxaan rabnaa si nabada walaalnimo ehelnimo shay kasta oo qabsanayna inaan ku dhamaysan waxaa loo sheegay kulan beesha sadeed ay yeelanayso gobolaayo taalo kulamo kale oo gobolooyin kale ah waxaa la isoo weydiinayay sida muxuu ka wada hadlayaa ma waxaa la shirinayaa beesha sadeed oo maxaa anaga aan isugu imanayna wax uga wada hadlaynaa anaga maamulka wax lagala qabaa beel bay wax lagala jiraan xaggana wuxuu jiraan shirkaas macnihiisa ma garanayno maran habaabin baa ku jirta waa warka saxaafaddu wax badan ay dhigayso waxaan anu ka hadlaynay beeshu inay isu timaado wada hadasho waxa ay qabaan ee ay tabanayaan ee ay maamul ka sheeganayaan ee culays ku ah inay markaas wada jiro u soo gudbiyaan waxaa laga yaabaa marka xanta laga hadlayo aad waxaa loogu xamanaya Axmed golo wasiir iyo maamul noo yeeliyay baarlamaanku soo qoray uu loo dhigteed gareeyay kuwan isaga keensaday waa dad sidana waa dad sidana waa dad sidana waa dad sidana waxaan jeclahay inta badan luqadda diblomaasiga ku hadlo luqadaan ku hadlayo waa waxa rumaysnahay iyo waxa jira haddii xildhibaano la soo qoray beesha sade hal nin kumaana lahayn maana soo qoray haddii golo wasiiro hore iyo maamul uu jiray maana ku lahayna beesha dhexdeeda warka imanayay buu ahaa waana xuquuq dastuuri oo leeyahay laakiin waxyaalahan hadda qabargalaya waxaa ka mid ahaa inaan xataa wixii tashiya diyaar u ah inaan dib u waxay beesha sade waa beel weyn oo gobollada jubbooyinka degan muhiim bay u tahay lafdhabar bay u tahay inay sidii minority u dhaqantaan laakiin soo nasiib darro ma oo ay tiraahdo sidana la yeelayaa xaggana wax jiraan dhan la isu sii buusay warsadow sidaas ma maalintii warsadadayaasha naadle wuxuu ahaa isu imaada xisaabtama ila xisaabtama marka qofka waxaa fiican geed yara inuu lahaado geed weyne hortiin toonanay wax badan oo idinku si sheegaysaa meelaha laga sheegay inta idinku wada hadashaan xisaabtama oo soo guriyo waxa go'an marka waxa tiraa warinkii noogu yeelaan xisaabtan miiskaan idin soo marsanaa diyaar baan idinahay laakiin takawnaad iyo waxaan jirin iyo kan iyo hebel inuu ku rixiyo hebel inaad ku tuuntaan intaas oo dhan marnaan ay baadimay meel u baxday banaanka waxaan rabnaa dadku midnimo iyo wuxdo iyo walaalnimo iyo wax ku qabsan kara dhaqanka siyaasiyiintu waxa weeyaan markaan gumaysigii ka soo qaadno qofka maamulka siyaasadda ugu fiican ee ku dhaqmo waxa weeye inuu yidhaahdo divide and rule ama qayb iyo xukun kan dhegta wuxuu saaro in shilimaha siiyo kan dhegta wuxuu saaro in kala siiyo midba meel istaajiyo haddaan midaas sameeyo beri ilaahay waxaan loo hortegaya ma laha la kollaba inaan midaa yeela lagama yaabo bale waxaan kharash ku bixinayaa oon ka shaqaynayaa oon habeen ka shaqaynaan maalin ka shaqaynaya aan isu kiin keeno oo idinkoo isku mid ah haddaan taan gaadhaan tiraniyo wax kale nama qanciya kursigaaga nooga dul waa luuqad jiri karta waanu sheegay dhaqanka ugaaskaa ka mid ah maxamed ugaas xaashi waxaan ku isu imaado waxaad sheegtaan hal maalin hal qoys hal qof oo reesida oo qof kale wax uga sheegay ama qoys wax uga sheegay haddaad kulligiin isu wada tagtaan ma heli kartaan nin kastoo iibina wuxuu yidhi uu garanaya
وعائلتها إلا حسابته قال لا وين صعبها يريد إلا حسابته لو وضع الله وحلي يسوي ديو وشيء أصعب وحان شعرها سيدو العلوكيان بشيء انت مقرنا إليك صوبيت مالينها صعودة لباها صعودة صدحها صعودة يسوى الإيمان المالينها لمن كستوى السدوء واحتوانا يمام الكتب الله وحكتوانا إيه إنك كستوى السدوء نحيس وحكتوانا ترحم بحسان وضع الله قولنا وضع يتقوى وضع الله نولكي النبات waxaad markaa idinka badi weyneed ku soo heshiisaan isla gaadhaan isla soo meeligtaan markaas waxaan noqonaynaa anigana iga yeedho waxaan tawarriyo annagu waxaan isku haynay waxaan ahayd hadda waxaan ku haysanaa nagala hada waa war cad soomo waxay la tahay inay arrinta muhiimkii ay midaas isbuusis iyo dhanisu riix cabashada reeseeda waan aqaana aad baa hadda u badan tahay boos baa la iga dumiyey guri baa la iga kiciyey حاجة وحلوري حي دون شاذا ملف كلوجلي قاعد يقول بالنا تي واو إلهي من يكون داري وردان دول اللي كسر دول اللي كحي أنا دول دولة ما قال دول أقول سير مجد دول أقول سير مجد ماشي أنا هذا هنشوف أنت قيس بتجري دوت مالي نسان وات قرن نسان كان يقول تجري تجري واتك الدولة تروح بعيا باش عطاني لها وشري يا شوكتو المورجن يا حمد شوكتو انت عرفتي قبصت ان عزيز كوري انت انا وحيصت براكد بي انت سبي كان او انا قطقرا بين او بسيبه يبوس لي حشيه ورنا ايغا كعيغاد او وحي ددك دخي سومالي بحيلا محدد كلي محدد كدخي ورمامل كان نوار وحنا هنا دلك يا ددك الى دولكيسي يا مامولكيسي يا وحي دولتها هذا اللي دولكي ان علاقه ان اسلام تاسيسين ايش waxaan dhisayna halkaan ay joogno waxa laga xiga dhowr iyo 30 qoys marka midaan la isku daro waa dhul dawladeed baa maanta nacfi maleeyahay mismala ما كنت فاعل انت مالي دولة الهيد بغنينينا دول كد شام بقول يسديت غوري او دول اي دولة الهيد عارف كل ود لا بنay hal hadii intii dad laga saaro isagoo banaan afar askari xaasii galo hadana laga saaro macna badan ma sameeyay laakiin waxaan idin balan qaadayaa dhulka dawladda askari wixii maalgashi xilliga la ogolaado ninkii maalgashi loo siiyo shuruudeeda soo buuxiyay jareer ha noqdo ama jareer ha noqdo Soomaali baa وحي صوماليا مالقلين عالمي الفهدين دولك دولة كومبرمايز ما قال خير لنا نجي حدان ما انت قاضي لا انتني خير كنا يكوسن تايو بوس كان قاد كان نجي كان بريبه تاريخ قريسا سوما بريبه على اسكير دبا ماري لكن دولك دولة لو دhisay maanta aad ku shiraysaan madaxtooyadii meel aan la sheegin in ma jirto guri kasto dawladdu waa la sheeganay وعيرتي أرنتاس حكودر سنين حسابتها مسألة الدنيا الدولة هي دولك السادة وكوضع هاللي كان معها قبيل كوضع هاللي كرانا مجد عيدو حسكوي دين إنسان مجد دولة شعب إذن كوي دولة ما جرت الدولة شرملا ولا يمان إنسان تلياني ولا يمان إنجليز ولا يمان وعلنا لا كوضع وعيرتي المدرسة يعني يكون مشغولين قال أحمد مدوبي فرتاجي بوسع قال كيف هو البيك عيال هو البيبوس كعيال تاسيان طلبة كل وحانوا بهنا باش هل كان يدك أغلبية بيقول كذا كده جنتها قول كان قبيل يا سكاية يا رجال يا ما أنت صواري عندنا كذا حياة مجد ما أنت قبيل علا مجد لماذا قبيل علا ما أنت واعي قول كان مجد وروح السياسة اللي يسوي قف مثل أنا هو سياسي بان ما أنت سياسة ده كشوها صوما مصالح السياسي دنت غيرك يا دنت وحلايا وين أحمد الله دنتين غير نما يقوس نما يدعان نما يمشون على النوشين كهل أو كفكرة لكن السياسي وميكروفون توقعت لقيا مصالح الشخصية مجاديني وحيلتها وقت بدأ يولد يكملون وحيلتها غير وسيد سودوا وهذا يقول له كل كنية جود إذا كان برتقاضي إذا ما نجي إذا كان
idinkaa dhigtay idinka idin taalla idinkaa isku maamulay waxaad tabanaysaa iyo waxa conclusion ku noqdo waan idin soo noqonaya waan idin sheegi doontaan haddii la yidhaahdo qabiilaad wax ka qabtaan ma jirto maamul ciddii wax ka tabanaysa diyaar baanu inaan uga jawaabo niman iyo haweenyo iyo soomaaliya iyo dhaqano danta dadka aan ka fakaro masaalixda shakhsiya iyo tugaara iyo mid kale toolax waddanooda qodobka labaad waxaa wada hadalka ka mid noqonaya deris wanaagga iyo wardowladaha derisdalaada maxaan kula dhaqanaa maxaa dhiboo naga jira maxaa wanaagoo naga dhexeeya xaggee xumaantu ka jirtaa xaggee wax ka jira isweydiiya wixii maamul ahaan aad nooga baahataan tiraan meeshaas cudurkaasaan ka qabnaaye axmedow kaale wax nagala soo qabo calaa ra'si walcayn diyaar baana inaan idinkala soo qabo laakiin inaan maalin walba influencer iyo wax kale iyo shidnaayo dhib nooma aad baad mahadsantiin raalli baad ahaanaysaa gogoshiina waa idiin furan tahay wada hadla waxaad u baahataan anoo wiilkiina waxaan diyaar ahay inaan idiin soo fadhiisto ila xaajootaan icanaanataan wax walba ka hadashaan aan qaato wixii dee sharci aydaanu lahayna aan idhaahdo aw hebelo waxaan sida sharci ma ahayn bal soomaalida kale aan dib u fiirin waxa dhaca iyo dawlad maanta dad baa la xidhi berri kuwaa la xidhi saadaba kuwaa la toogan kuwa shabaabaa la soo qaban kanaa dhacaya wax kale idinku maaha khaladaad baa dhacaya sax baa dhacaya mujtamaca waxbaa ka imanaya wanaagii xumaan buu yeelanaya maamulka waxbaa ka imanaya wanaagii xumaan buu yeelanaya qof macsuumi ma jiro qof macsuuma oo aan dembi lahayn oo wax ka dhacayn lama jiro laakiin qadarinta iyo ixtiraamka iyo dowladnimada iyo waxaan ka hadlayna dib ha loo fiiriyo aad baad u mahadsantihiin shir wanaagsan kula wanaagsan waxaan idiin rajaynayaa marka dambaan idiin soo noqdo idinkoo akhyaar badan oo kalena idiin timid wax badan oo kalena isweydiiyey xisaabtamay wada hadlay isqanciyey eed sheegashada soo yareeyey 2 3 qodob ka soo dhigtay inaan isu iman doono idinka jawaabi doono salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu